بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة التوبة ومدنية وآياتها 29 و100. سورة مدينة كسود دكتي آيات كيدنا وبقول 29. سورة دان وسورة مدينة كسود دكتي سورة دان مدينة وحكسو مرني waxyaalaha ay ka hadlaan waxaa u badan jaanibka tashriica islaamiga ah. waxay ka mid tahay suuraddan suuradihii waqti ugu dambeeyey cahdiga nebiga soo degay sanadkii 9aad ghaswatu tabuuk, duulaankaas oo nebigu ku qaaday ruum. waana dagaalkii ugu dambeeyey nebigu uu maaragtay qaado, inkastoo uusan dagaal dhicin oo ay carareen. waxayna ahayd waqti aada u kulul oo safarkuna uu dheer yahay, nebigana uu u sheegay meesha ay u socdaan. waayadii hore lama sheegi jirin, tawriyo wax la yidhaha nebigu samayn jiray oo xeelaysi ah. markuu dhinacaas kismaayo u socdo wuxuu dhihi jiray xaggaas iyo waxaan u socnaa balcad, si loo jahwareeriyo dadka munaafiqiinta ama asraarta islaamka bixinaya. suuraddan 2 hadaf ama 2 ujeedo ayay ka hadlaysaa inta badan, iyadoo axkaam fara badan aan ku arki doono, laakiin in la caddeeyo qaanuunka islaamiga ah, mucaamalada mushrikiinta iyo ahlu kitaabka lala mucaamaloonayo, cuhuudda iyo ballamada la dhiganayo. hadafka labaadna wuxuu yahay in la muujiyo wixii nufuusta dadkii markaas nebiga uu dagaalka ugu yeeray qaswatu tabuuk naftooda siday ahayd, oo dagaalka qaarkood ay uga baaqsanayeen ama ay maaragtay dib u gurasho samaynayeen. hadafka hore suuraddan waxay soo bandhigtay ballamadii mushrikiinta lala galay. xuduud baa loo sameeyey, 4 bilood ayaa loo sameeyey. wixii awal ballan hore jiray, ballankaas sidii uu ahaay ayuu ku soconayaa. sida nebiga calaih isalaatu wasalaam uu mushrikiintii quraysh sulxu xudaybiya 10 sano oo heshiis ula galay. heshiiskaas waqti buu lahaay, waqtigaas haddaan la jebin saasuu ku soconaya, laakiin ayagaaba jebi doona. waxaa kaloo maaragtay la manciyey mushrikiinta inay beytka alle u soo xajiyaan sanadkaas 9aad. waxaa la gooyey wilaayadii muslim iyo gaal, wax wilaayaha inaysan ka dhaxayn. waxaa aasaas loo dhigay in ahlu kitaabka ayagana jaziira alcarabiya baaqi ahaanshadooda loo dejiyo xuduud oo tacaamulkoodana la caddeeyo. nebiga calayh isalaatu wasalaam mushrikiintana ballan buu la galay, yahuuddana ballan buu la galay ahlu kitaabka ka mid ah, laakiin mushrikiinta way jebiyeen ballankii ay la galeen nebi maxamed. yahuud bay maaragtay xilfi la samaysteen, yahuudina iyaduna way ka baxeen ballantii ay nebi maxamed la galeen. weliba wakhtiyo badan ayay ballankaas jebiyeen. xikmad marka ma ahan muslimiintu inay ballankaas, maadaama laga baxay, ayagu ballankii ay kusii jiraan. hadday ka baxeen waa in ayagana looga baxaa, sidaan ku soo marnay suuraddii hadda naga dhammaatay suuratu alanfaal. wain yuriduu khiyaanataka faqad khaanu llaha min qablu faamkara minhum wain yuriduu an yakhdacuuka faina xasbaka allaahu. waa soo marnay, haddaa ka dareentid inay ballanka ka baxayaan fanbid ilayhim calaa sawaa. suuraddaana marka soo degtay, ballankaas lala galay si cad in loogu sheego oo qoladii ballan laheedna ballankeedii loo daayo
muddadii u ahay kuwii aan ballan lahayn 4 bilood in ay maaragtay ku diyaar garoobaan oo ay ku tala galaan sidaasay suuraddan ay xadkaas u samaysay haddii maslaxa ay u arkaa marka in ay islaamaan inay islaamaan haddii kalena in jizye iyo wax la mida laga qaadi doono waa la kala baxay hadafka labaad ama ujeeddada labaad oo suuraddu ka hadlaysa waxay tahay oo in badan suuraddan aan ku arki doontiin in la sharxo nafsiyaadka dadka muslimiinta ah markii uu nebigu ugu yeeray inay ghaswatu tabuuk aadaan aayaad fara badan baa ka hadli doona oo suuradda mucdamkeeda ama inta badan ay ka hadlayaan oo lagu fadeexaynayo dadkii munaafiqiinta ahay iyo asaaliibtooda iyo sida ay maaragtay muslimiinta ugu samaynayeen fashil iyo khidlaan ay maaragtay sirtooda u faafinayeen ayagana marka waa la daba kacay wa minhum wax fara badan ayaa la kashifay ilaa xataa markii dambe ay meelihii cibaadada ku soo gabadeen oo masaajid la yidhaha masjidu diraar loo bixiyey ay maaragtay ka dhigteen saldhig markii dambena la burburiyey markii la ogaaday suuraddan marka aad bay uga hadli doontaa munaafiqiinta iyo arrinkooda suuratu التوبة والي هذا سورة براءة نوالي هذا ويعيك النوالات هاي بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وعلى يا ودتك الإسويديان سورة الله كلا بسم بالآيان suuraddaana bisin laguma bilaabin maxaa sababtu ay tahay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay qorayeen qur-aanka musxafkiisa waqtigii cuhmaan ibnu cafaan kuma aysan qorin bisin musxafkii la qorayay sidaasay ku daayeen wax kaloo ka jawaabana ma leh qolooyin badan oo ka jawaaba waa jiraan wax isku dayay laakiin wax cad oo maxaa looga daayay bisinka ma jirto baraa'atun haadihi suuraddan baraa'atun waa bari ahaansho min allaahi alle wa rasuulihi iyo rasuulkiisa ay ka bari noqonayaan ila aladiina kuwa caahadtum aad la ballanteen min almushrikiina oo gaalada ka mid ah mushrikiinta waa kuwii nebi maxamed ka soo horjeeday mushrikiin kuwaasaa sida badan loo isticmaalaa inkastoo ahlu kitaabka mararka qaarkood laftigoodana lagu daro oo ishraagaas laakiin ayaga ahlu kitaab curfigaas uu qur-aanku u isticmaalaa waana waa mushrikiin iyo muslimiin iyo munaafiqiin qaybahaasa loo isticmaalo baraa'atun midaani waa bari ahaansho min allaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa ay ka beri noqonayaan berigu waa isma sheegana wey markaad tidhahdid ilmahan anugu ma dhalin ilmahaygii ma ahan beri baa ka noqotay macnaha ma sheeganaysid marka ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ka beri noqdeen ila aladiina caahadtum min almushrikiin kuwii mushrikiinta ahay oo ballanka alla gasheen beri bay ilaahay rasuulkiisa ka noqdeen marka ballankoodii see la yeelaya fasiixuu fi lardi dhulka ku socda 4 ashhurin 4 bilood 4taas bilood mufasiriinta waxay yidhaahdeen waa dadkii ballanka mudlaqa ahay ama aan heshiis cayiman aan loo samayn kuwaasaa 4 bilood muddadaasaa la siiyey in ay maaragtay ku soo fakaraan inay islaamaan iyo inay jizye iska bixiyaan oo ay maaragtay sidaas go'aansadaan laakiin dadkii ballanka
cayiman lahaay ama 10 sano ama maaragtay ka yar ayagu ballankoodiyaa loo daayay haddaysan ka bixin ama aysan gaalada kale soo maaragtay biirin fasiixuu fi lardi dhulka ku socda 4 ashhurin 4 bilood waa dadka ballanka cayiman aan lahayn ay sii daysnahay laakiin kuwii ballanka lahaa oo arki doonaa ballankoodaa loo daynay wixii 4 bilood marka ka yaraay ama maaragtay ku sinnaay 4 bilooda loo daynay fasiixuu fi lardi 4 ashhurin waclamuu waxaa ogaatiin annakum adinku gayru mucjizi illaah alla inaadan cajzi geli karinina oo ilaahay inaadan ka carari karinina sida bini aadamka looga fakado oo meel kale loo galo ilaahay wax cid ka carari karta ma jirto waclamuu ogaada annakum adinku gayru mucjizi illaah alla inaadan cajzi geli karinina alla waa idinka xoog badan yahay cajziga wuxuu ku dhacaa dadka aadamaha ah oo qofkaan maaragtay aan uga daba tegi karin meel kale oo qofka xoog weyn meeshaas kale uu jiro boqor ama madaxweyne kale laakiin allah subxaanahu watacaala cid cajzi geli karta ma leh wa anna allaha alla mukhzi lkaafiriina gaalada ilaahay waa dullaynayaa khizyi iyo dullayn buu ku samaynaya wa anna allaha alla waclamuu annakum gayru mucjizi illaah wa anna allaha mukhzi lkaafiriin waxaa kaloo ogaatiin alla inuu maaragtay dullaynayo gaalada asaga maaragtay ka xarig furatay wa adaanun min allahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbar ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluh wa adaanun waa ogeysiin iyo iclaam sida aadaanka hadda loo yidhaahdo dadka salaada u imaada waqtigii inuu galaa la ogeysiinayo aadaanku marka waa iclaam adaanun ogeysiin min allaahi allah xaggiisa ka timid wa rasuulihi iyo rasuulkiisa ila nnaasi dadka la ogeysiinayo yowma alxaji alakbar maalinta xajka ee weyn maalinta ciidda ah alxaju maaragtay ugu acmaasha badan yahay maalintaas ayaa la ogeysiinayaa ana allaha alla barii'un min almushrikiina wa rasuuluhu alla inuu ka bari yahay mushrikiinta rasuulkiisana uu ka bari yahay oo aysan imaan karin kacbada hadda ka bacdi waagi hore waa imaan jireen laakiin sanadkan 9aad nabiga calayh isalaatu wasalaam abubakar ayuu xajkaas uga dhigay madax inuu ogeysiiyo in sanadkan ka bacdi qof mushriga uusan soo xaji karin kacbada iyadoo qaawanna aan la dawaafi karin waa arki doonaa insha allah wa adaanun min allahi wa rasuulihi ogeysiin allah iyo rasuulkiisa ila nnaasi dadka la ogeysiinayo yowma alxaji alakbari maalinta xajka ee weyn oo ciidda ah yowma naxri ana allaha alleh waxaa la ogeysiinayaa barii'un inuu ka bari yahay min almushrikiina gaalada wa rasuuluhu rasuulkiisana uu ka bari yahay fa in tubtum haddii aad ka toobad keentaan gaalay wixii aad ku jirteenoo shirki iyo baadi ah fa huwa khayrun lakum toobadkeenkaas waa idin fiican oo idin khayr badan waa sida fiican oo idin khayr ka badan haddii aad toobad keentaan fa in tubtum haddaad ka toobad keentaan shirkigii iyo baadidii aad ku jirteen fa huwa toobadkeenkaasi khayrun lakum waa idinkaga fiican yahay gaalnimadii hore aad ku jirteen wa in tawallaytum haddaad jeesataan oo khayrkaas iyo wanaaggaas iyo iimaankii aad ka jeesataan oo gaalnimadiinnii aad joogtaysaan faclamuu ogaada annakum adinku gaalay gayru mucjizi illaah
alla inaadan cajzi gari karinina uu idin awoodo asaga gacantiisa ku jirtiin iyo qahrigiisa iyo maarta qabdadiisa wa bashiril ladina kafaru kuwa gaalooba waxa ugu bishaaraysa bi'adaabin aliim cadaab xanuun badan ugu bishaaree inay arkayaan adduunyada iyo aakhirada labadaba in ay maarta dhadhaminayaan oo adduunyadiina waa la dagaalamayaa in la qafaasho ama la dilo ama la adoonsado aakhirana cadaabkaas sugay bishaarada marka labadaba quraanka uu ka cabiray waxyaalaha wanaagsan oo jannada in la isku bishaareeyo iyo cadaabka laftigiisa in kasta ilayhiin fasiliinta qaarkood bishaaradan bimacna tahakkum ayaga lagu istihzaa iyo jaasas ayay maartay u tahay oo waxay la mid tahay duq innaka anta al-azizul karim qof maartay la cadaabayo leeyahay qadamin in wanaagsan adigoo ah marka ma wanaagsana laakiin waa lagu kajamay istihzaa wa bashir bishaarah alladina kafaru kuwa gaaloobay bi'adaabin aliim sida u sheegay cadaab xanuujiya illa alladina caahadtum min al-mushrikiin kuwaas ballanta waxaa laga reebay marka muddadii 4 ashhurin maartay la soo sheegay 4 bilood waxaa laga reebay kuwaan illa alladina kuwii moogiye caahadtum min al-mushrikiina kuwaas ayaga lagaba bari noqonayo waqtigoodii ayaa loo daynay laakiin kuwa kale oo aan waqtiga lahayn 4 bilood baa muddo looga dhigay hadda illa alladina caahadtum min al-mushrikiin kuwa aad ballanta la gasheen oo mushrikiinta moogiye thumma lam yanqusukum shay'an oo aan nuqsaamin ballankii lala galay waxba kama dhimin shuruudihii loo qabtay waxba kama nuqsaamin walam yudaahiruu calaykum axadan qofna uma soo kaalmayn oo gaalo kale ma soo biirin oo idinkuma soo qaadin dagaal mudaaharadu waa inay maartay dad kale soo raacaan thumma lam yanqusuukum shay'an oo haddana aan nuqsaamin ballanka idila galeen wax ka mida walam yudaahiruu calaykum axadan qof kalena aan u kaalmayn fa atimmuu ilayhim cahdahum ballankoodii u dhammaystira ilaa muddatihim ilaa muddadoodii laga gaaro 10 sano hadday ahayd 10kii sano la daynay laakiin bishardi in aysan ballankii ka bixin cid kalena aysan u soo kaalmayn gaalo kale oo muslimiinta ku soo duulay fa atimmuu ilayhim cahdahum ballankoodii u taam yeelo u dhammaystira ilaa muddatihim ilaa muddadoodii laga gaaro ina allaha alla yuxibbu waa jecel yahay almuttaqiina dadka asaga ka baqa oo ballanka oofiya ilaahay waa jecel yahay jacaylku marka waa sifo ilaahay u leeyahay buqdi iyo jacayl labadaba quraanka waa lagu tilmaamay ilaahay mar hadduu jecel yahay muttaqiinta dadkan ka baqayna waa necab yahay waa mafhuumkii laga fahmayo alla marka waa jecel yahay dadka asaga ka baqa oo ballanka oofiya fa idan salakhal ashhurul hurum bilihi xurmada lahaay haddii laga baxo ay dhammaadaan faqtulul mushrikiina mushrikiinta la dagaalama xayثu wajadtumuuhum meel kasta oo aad kula kulantaan zaman kasta iyo waqti kasta la dagaalama al-ashhuru al-hurum maxaa laga wadaa mufasiriinta qaar ka mida waxay yiraahdeen waxaa laga wadaa minha 4 hurum 4 bilood ee dagaalka la manciyay bilaha ashhurul hurumka ah 12 bilood 4 bilood oo kamida waa dilqaacda bisha la yiraahdo iyo dilxaj iyo muharram iyo rajab 4taas bilood waa 4 bilood oo la joojiyay dagaalka waayadii horena maartay sidaas
حرمة أولهاي إسلام كنا مارتي أفرتا بلاد حرمة ويالي قالوا إلى سياسة لقوضا وابن جرير الطبري باكمل رقا كفسرين لكن ابن كثير مفسرين كانوا كفسرين أفرتا بلاد وحا لقوضا أفرتي بلاد مدد لسيي أو إن للدق علمه لجوجيي عهدقاس لسيي سياقنا سياس وكينا هذا الكسر أصعده فإذا انسلخ الأشهر الحرم بليه دقالك لجوجيي أو لسيي مددة مركي أي رمادان انسلخ ومركي بشو أي رماتو فاقتلوا المشركين بلن كاس مركو رمادا لدقالما حيث وجدتموهم مال كستوات كهشان ودولك كميدا وعام مركا لكن وحا خاص كدغايا إن بلاها أما ماشي حرم كأه إن لقول دقالمي كريم هديسن أيغو بلابين سورة بقرة كسامرني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين هديسن إذا كب بلابين أذنكو هكو بلابينين فإذا انسلخ الأشهر الحرم بليه مارتي دقالك للجوجيي أو مددي لسيي مركي دماتو فاقتلوا المشركين قالنا لدقالما حيث وجدتموهم مالك استوعد كهشان وخذوهم قبطة أو مركا قبطان أما الدلة أما قفاشة وخذوهم وقبصة واحصروهم حسار كسباي يقبقبو أو مالي واسعة هاي إليني بالله دغياو dhufaysyadii iyo maalihii ay mari jireen iyo maartay meeshaas oo dhan xisaar baa lagu gelinay waxsuruhum wa man'iyo xisaar galiya waq'udu lahum ufariista kull marsad meel kasta oo maartay loogu gabado marsadku waa meel gabaadaho loo galo jagboyntiya loo dhiganay oo markay yimaadeen lagu qabanay waq'udu lahum kull marsad helitaanka kaliya laguma daynayee waxaa loo fadhiisanayaa dhaba kasta fa in taabuu hadday toobad keenaan marka oo gaalnimadii ka soo laabtaan wa aqaamuu salaata salaadana ay toosiyaan wa aatuu zakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddada u banneeya ciriirigii iyo qabashadii iyo dagaalkii iyo baa laga joojinaya waa muslimiin adiga kula mid ah wixii aa leedahay bay leeyihiin wixii adiga aan maaragtay lagugu samayn karin ayagana laguma samayn karo sida xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa waxaa lay faray inaan gaalada la dagaalamo ilaa ay shahaadateynka ka qiraan oo salaada ay ka tukadaan oo zakada ay ka bixiyaan haddii intaas marka ogolaadaan oo muslimiin waddadooda loo bannaynaya fa in taabuu hadday toobad keenaan gaalnimadii ka soo laabtaan wa aqaamuu salaata salaadiina ay toosiyaan wa aatuu zakaata zakadiina ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya ina allaha alleh ghafuurun waa alla u dhaafid badan ciddii u toobad keenta raxiimun una naxariisasho badan wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allah uma abliqhu ma'manah dalika biannahum qowmun laa yaclamuun wain axadun wain istajaaraka hadduu ku magan galo nabi maxamedow axadun min almushrikiina qof mushrikiinta ka mida hadduu magangelyo ku weydiisto faajirhu magangeli xataa yasmaca kalaama allah ilaa uu maqlo hadalkii alleh qur-aanka ilaa uu dhegaysto
oo xujada lagu oogo qofkaas magan geli amni hadduu ku weydiisto waa inaad amni siisaa ilaa qur-aanka uu maqlo oo ku dul akhrisid oo xasuusisid xujada ku oogtid uma dabadeed abliqhu ma'manah dabadeedna gaarsii meeshii ammaanka uu ku noqon lahaay oo bilaadiisii ilaa uu ka gaaro waa inaan la taaban ammaankaas ku jira ujeeddada marka waxay tahay qofkii ka yimaada daarul xarbi meeshii dagaalka lagu jiray oo daarul islaam yimaada oo ama warqad buu wadaa ama maaragtay inuu ganacsadu rabaa ama heshiis buu raadinayaa ama maaragtay jizye ayuu wadaa oo muslimiinta u keenay waxyaalahaas oo dhan imaamkii ama qofkii ku xigay ayuu ammaan ka dalbay maadaama daarta islaamka uu ku jiro amni baa la siinaya ilaa uu beledkiisi u laabto islaamka saas u tixgelinayaa oo mucaamalada lagula dhaqmayo waa sidaas wa in istajaaraka haddii uu ku magangelyo ku weydiista axadun min almushrikiin qof ka mida mushrikiinta istajaaraka hadduu magangelyo ku weydiisto fa ajirhu nabi maxamedow magangeli xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu maqlo hadalka alleh uma abliqhu ma'manah markaa dabadeed gaarsii meeshii ammaan uu ku noqon lahaay daalika arrinkaas biannahum qowmun laa yaclamuun waa dad aan ogeyn oo tacaaliimta islaamka iyo waxa maaragta islaamka uu yahay ma garanayaan marka xujadaa lagu oogayaa waxbaa loo sheegayaa waa loo caqli celinaya kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cinda allah wa cinda rasuulih ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam kayfa yakuunu kayfa sideebaa yakuunu lilmushrikiina mushrikiinta sideebay ugu noqonaysaa cahdun ballan cinda allaahi alla agtiisa wa cinda rasuulihi iyo rasuulka agtiisa ila aladiina kuwii moogiye caahadtum aada la ballanteen cinda almasjid alxaraam masjid alxaraam agtiisa waa quraysh oo sanadkii 6aad uu nebigu xudaybiya sulux uu kula galay sideebaa marka mushrikiin cahdi uu ugu noqonayaa ilaahay agtiisa iyo rasuulka agtiisa kuwaas masjid alxaraam kugula gala moogiye fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin oo ballankii ku toosan yihiin fastaqiimuu lahum adinkuna u toosnaada hadday qalooc geliyaan adinkuna qaloocayaa gelinaysa hadday ballantii ka baxaan adinkuna waa ka baxaysiin ina allaha alleh yuxibu lmuttaqiin waa jecel yahay allah dadka ka baqa oo ballanka oofiya waa aayaddii labaad oo lagu soo celiyey ina allaha yuxibu lmuttaqiin marka taqwadu mar kasta waa loo baahan yahay wax kasta oo qofku uu maaragtay galo ballan hadday tahay hadday xuduud alla tahay haddii maaragtay wax kale uu gelayo taqwa loo baahan yahay kayfa yakuunu cahdun lilmushrikiin sideebaa ballan mushrikiin uga suuro gelayaa cinda allaahi wa cinda rasuulih alla agtiisa iyo rasuulka agtiisa ila aladiina kuwii moogiye caahadtum aad kula ballanteen cinda almasjid alxaraam masjid alxaraam agtiisa cid kale oo ballan la siinayo ma jirto wixii hadda ka horeeyey waa sidaasaa lagu daynayaa maantay wixii ka bilowda intaas markii la siiyo muddada markay dhammaato waa bis saaf iyo jizyow ama waa lala dagaalamayaa qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ama waa islaamaya fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin oo ballanka ku toosan yihiin fastaqiimuu lahum adinkuna u toosnaada ina allaha yuxibu lmuttaqiin alla waa jecel yahay dadka isaga ka baqa kayfa wain yadharuu
عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف يكون عهد سيدا بلن أهانيا وإن يظهروا عليكم هدي مارتي إذن كأتكاذان لا يرقبوا فيكم إذن ما إلالينيان إلا قرابا النمو ولا ذمة يبلن لبضا ما إلالينيان كيف وتعجب كيف يكون عهد سيدا بلن أغسو رجليا وإن يظهروا عليكم هذا إذا كأتكاذان أو إذا كسر مران لا يرقبوا فيكم أذنك دحدينا ما إلالينا يان أو إذا كما احتراما يان إلا ورحم يقرابا نمو ما إلالينا يان ولا ذمة بلن أيد لقلنا ما إلالينا يان يرضونكم بأفواههم وعيد كرها لقلنا يان أفكوذا وهذا الله مارتي معان بالذي كلها هذا وتأبى قلوبهم لكن قلب قود وديدين ونعيب كإسلام كأيقبان إيا أهل كيسا قلب قود مارتي أدب وقبوحا عيل كأيقبان ما ملايكرتي لكن أفكح وقا واسد إلهي نوشاهي قال هذا وقوة نهاية ها مارتا وإن لا احتراما بالله ماذي لا قالي يعودي لا نكتي عادي جنافة عادي كذا مارتي ما تضع عرورتا هوانك ذاتك عجزك وإن مارتي وحلسية أفكار يرضونكم بأفواهكم إلهي روح نوشاهي وتأبى قلوبهم قلبي قد وديدين هاي إن الله يهربا وأنا أركتها واقع هذا الجراء الدنيا ذا واقع أركتها قرآنك وكان وحقيقاه الجراء وأنا قصة مرة سورة آل عمران سيدا يقولنا عبيه المسلمين إن مارتي وما تخفي صدورهم أكبر وتأبى قلوبهم تيو وحي موجنا يان وحكسي دران وحقلبي وخرصون ونعيب يرضونكم بأفواههم وحي ذكرها لقلنا أفكوذا وتأبى قلوبهم لكن قلبي قود وديدين هاي وحي أفكك الشيقيان ويذكرها لقلنا وأكثرهم فاسقون انتو ذا بضلنا طاعة إلهي كبحين قف إلهي مركز ديدي وضاعدي سكبحي وكافرة هذه مسلم كاو إلهي وقلاضي أحسانكم السمين أنا سوق وليا اشتروا بآيات الله إلهي آيات كيسا وحي كؤيب سدان ثمنا قليلا لعق يربي سيستان الدنيا يرب فصدوا عن سبيله وعدتك كجيديان إلهي ودديسي إنهم أيقوا ساعة وحا حماضي ما كانوا يعملون وحا أي سمينيان كاسا حماضي أيقي بأمرك مارت الله إذا ارتينيا مسلم كان وحا لغو براروجينيا إن إسكعليا قالت النوع عاصر اشتروا بآيات الله الله آيات كيسا وحي كؤيب سدان ثمنا قليلا لعق يربي سيستان آيات إلهي ماشي كراعي لهايان وحي مارت كوغتين الدنيا فصدوا عن سبيله وحي كجيديا ددك إلهي مارت جدكيسي إن حقل الراعه إنهم ساء وحا حماضي ما كانوا يعملون وحا أي سمينا ينعمل كوداس أدب فالحية هاي إن آياتك الله أي وحسيستان الدنيا لا يرقبون ما إلالنا يان في مؤمن قف مؤمنة إلا قرابا النمو ولا ذمة يبلن عهدي مثل ما إلالنا يان وتصمر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلا والرحم والقرابة قرابة النمو إذا كمتح قرينا يان بلن أدقتين متح قرينا يان بلن كواجبين يان مرة أي أركان إنا مارتكاس إذ علي كران وأولئك هم المعتدون هو أسواق حد قدبي أو حدودي وين نافين
فإن تابوا داي توبت كانان ولي توبة إلهي وأفرد إن تابوا داي توبت كانان وأقاموا الصلاة صلاة أي توسيان وآتوا الزكاة أي بحيان فإخوانكم في الدين أيضا حصام الرأي فخلوا سبيلهم وحب الله ما قبنا يا جدك الله بنينا يا عريري يا وحي هايستي ولقى فجنا يا واسع بيسوق لين هدنا فإخوانكم في الدين وولاليه الدين كيكون ولال إسلامكم ما في ريو مذهب يا جنس يا كلر منا وحلا في قفك ما إسلامي نوع دونها النقض عدو دونها النقض وولالك لغة دونها كوهد لي يعني وأنا حريص إلهي إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا توبتك أنا قال لماذا كسر اللابتان أو صلاة أي تكذان أو زكاة أي بحيان وولاليه فإخوانكم في الدين ولاليه الدين كيكون ولاله وحالاذا هاي بإليهم وحلقوا ليهي يقولون مارتك وليهم حقوق با مارتي ولالتني ما كتمت ونفصل الآيات آيات كوان عديرنا لقوم يعلمون ضد وحقرنا بار آيات وتفصيلنا وكلا بيامنا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إن نكثوا أيمانهم هو المشركين بلنت للقلي وإن نكثوا هذين جبيان أيمانهم بلمذودي وطعنوا في دينكم ودينتنا أي وحكشيغان وعيبيان أما أي مارتي نبي محمد عيان أما إسلام كي مارتي كجاستيسان أو أي مارتي وحكشيغان فقاتلوا لدقالما أئمة الكفر قال هذا قوة مدحيوين تعاه إنهم لا أيمان لهم عهد يبلن مجره مرحد إسلام كي وحكشيغان إيو مارتي نبي هقامين لعلهم ينتهون سيوجوك سدان وحا أي كجران عنات يقال لماذا إن نكثوا أيمانهم كوا المشركين تابلنتو دي هذي جبيان وطعنوا في دينكم دينكينا أي درانا وحكشيغان دينكي بعايان وحكشيغان سيدا هذا بأركيسين قار بدن ومارتي قال دي وحوا ضدك لي أديك سنيان ضدك أسوح إليهن أما كتاب القرآن كي استاغيان أما وإهاني سنيان أما الرسول كي عينيان أما كركتير إبرايك لي يسوري سوق هذا يديك كفال حمينيان مركز الله وحرية القول حرية بس حرية القول من نبي محمد وحلقة الشيقاء مسدين كسلام وحلقة الشيقاء حرية ما هنتاس أيقنا ما أقلا إن مارتي وحلقة الشيقاء سيامرك هذه أقلانيس دينك إلهي إنه وحكا الشيقاء أو أي مارتي نبي محمد عايان لا أقلان كرماه فقاتلوا أئمة الكفر قال هذا مارتي إمام يالكوذا كوذا مدحيوين تالد قالما إنهم لا أيمان لهم مرهدي بلنتي جبيان أو عي ودقاقين إسلامكي وح بلنا مجران ولما هذا بلنكي لعلهم ينتهون سيوجوك سدان إذا الدرد أي كجران أيضا ألا تقاتلون ما لدقا لنتان قوما قلوا نكثوا أيمانهم بلنكودي جبيي وهموا كفكروا دمعي بإخراج الرسول رسولك محمد إنه يبدحيان وهم بدأوكم أيضا إذا كب الله بيدقالك أول مرة مركي هراء وكعتان مسلمين تلقوا كعنا يقال هذا بلنك جبيسي أو نبي محمد هميي أو دمعي إنه كبدحيان مكة
sidaan kusoo marnay suurat al-anfaal waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin. waa kuwii maaragtay ku tashaday daaru nadwa baarlamaankoodii quraysh maka inay nebi maxamed ama la dilo ama la musaafiriyo ama maaragtay la bixiyo bay ku tashadeen. marka dadka noocaasa waxaa leeyahay yaa loo fadhin alaa tuqaatiluuna maa la dagaalantaan leeyahay maxaa ula dagaalami laadihiin qowman qolo nakathuu aymaanahum ballankii jebiyey wahamuu damcay oo ku fakeray biikhraaji rasuuli rasuulka inay bixiyaan wahum bada'uukum awala mara idinkuna bilaabay dagaalka markii ugu horreysa beder ayagaa inta maka ka soo duuleen markii safarkoodii u nabad galay bay soo aadeen beder laakiin waa ku jabeen. atakhshawnahum kuwaas bay ka baqaysaan faallaahu axaqu an takhshawhu allah mudan inaad ka baqdaan asagaa maaragtay iskale in laga baqo in kuntum mu'miniina mu'miniin dhaba haddaad tihiin. ilahay wuxuu le kuwaas bay ka baqaysaan ilaahay baa mudan in laga baqo. atakhshawnahum magaaladaas quruleyda ha ka cabsanaysaan faallaahu axaqu allah ku xaq leh oo mudan an takhshawhu inaad ka baqdaan ahal asagaa u ah in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa aad ka baqaysaan. qaatiluuhum la dagaalama kuwaas yucadibhum allaahu ilaahay baa ku cadaabaya biaydiikum adinka gacmihiinna ayaa alla ku cadaabayaa oo adinkaa laydinka adeejinaya laydinku sallidaya wayukhzihim ilaahay waa dullaynaya waa hoojinayaa wayansurkum calayhim waana idinkaga hiilinaya waa idinkaga gargaarayaa wayashfi alla wuxuu caafimaadinayaa suduura qowmin mu'miniin dad mu'miniina laabtooda ayaa ilaahay caafimaadinayaa oo ciil u qabay markii ay dhiig ka cabaan. wayudhib alla wuxuu baabi'inayaa gayda quluubihim quluubtooda caradii ku jirtay waa la baabi'inayaa. wayatuubu allaahu calaa man yashaau alla waa ka toobad aqbalayaa ciddii uu doono oo addoommadiisa ka mid ah oo dadkii nebi maxamed la dagaalamayay qaar fara badana islaamay oo shalay cadow ku ahaay. qaatiluuhum la dagaalama kuwaas yucadibhum allaahu ilaahay baa ku cadaabaya biaydiikum adinka gacmihiinna wayukhzihim ilaahay waa hoojinaya waa dullaynayaa wayansurkum calayhim waana idinkaga gargaaraya idinkaga hiilinayaa wayashfi suduura qowmin mu'miniin qowm mu'miniinana laabtooda ilaahay waa caafinayaa. shifaa macnaha qofkan aada u ciil qabtay haddaad maanta ka adkaatid laabtaadu waa istareexaysaa. wayudhib wuxuu tabinayaa alla baabi'inayaa gayda quluubihim quluubtooda ciilkii ku jiray mu'miniinta waa ka baabi'inayaa. wayatuubu allaahu calaa man yashaau ciddii uu doonana ilaahay waa ka toobad aqbalayaa. wallaahu alle caliimun waa alla ku cilmi badan addoommadiisa wixii maaragtay u suubada xakiimun afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo sharcigiisana allah xakiim buu ku yahay. wuxuu doonuu samaynayaa wuxuu doonuu xukumayaa waa alla caadil ah oo jawr aan samaynayn wax uu maaragtay alla ka fakaraya ma jiraan. am xasibtum an tutrakuu walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum walam yattakhiduu min duuni illaahi walaa rasuulihi wala lmu'miniina waliija wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun. am xasibtum ma waxaad u malayseen mu'miniinay an tutrakuu in laydinkaga tegayo sidaan adinkoo ikhtibaar iyo imtixaan aan gelin oon la kala saarin midka runta sheegaya
oo dagaalka u dhabta ka yahay iyo midka beeraalaha ah asaasa u malayseen in idinku daynayo adinku isku dhex jira waxay la mid tahay alif laam miim ahasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun iimaana sheegatay adoo lagu imtixaanin walaqad fatanna aladiina min qablihim fala yaclamanna allahu aladiina sadaquu wala yaclamanna alkaadibiin ilaahay waa kala saaray dadka runta sheegaya iyo beeralayaasha am xasibtum waxaad u malayseen an tutrakuu in laydinka tegayo laydin daynayo sidaan adinkoo maaragtay ah oon laydin imtixaamin walamaa yaclam illaahu alla isagoon maaragtay soo saarin oo uusan ogaan aladiina jaahaduu minkum kuwa idinka midahoo dagaalamay walam yattakhiduu min duuni illaahi oo aan samaysan ilaahay ka sokay walaa rasuulihi iyo rasuulka ka sokay walalmu'miniina iyo mu'miniinta ka sokay isagoo aan samaysan waliijatan saaxiib hoose oo gaaladii la xiriira sirtii faafinaya ma sidaasaa u malayseen malahaas waa khaldan yahay haddaad u malayseen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu maaragtay kala saarayaa midka adeecsan iyo midka caasiga ah wax kasta oo imaan doonana ama maaragtay hadda jirana ilaahay waa og yahay marka dadkii baa la kala saaraya am xasibtum an tutrakuu walamaa yaclam illaahu allah isagoon maaragtay soo muujin aladiina jaahaduu minkum ilaa alla waa ogaaye laakiin dadkii baa bannaanka loo soo dhigaya la tusinaya walam yattakhiduu aan samaysan min duuni illaahi alla ka sokay walaa rasuulihi rasuulka ka sokay walalmu'miniina mu'miniinta ka sokay aan samaysan waliijatan waliijadu waa bitaana waa qof hoose iyo waday iyo saaxiib asraar samaysan wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir alla waxaad samaynaysaan alla xogogaal u ah khibrad iyo aqoon ayuu u leeyahay maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allaahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun maa kaana lilmushrikiina mushrikiinta uma bannaana maa yanbagii lilmushrikiin maa yajuusu maa yasixu uma ansaxayso uma bannaana an yacmuruu masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa inay camiraan shaahidiina calaa anfusihim ayagoo naftooda ka markhaati kacaya bilkufri gaalnimo ayagoo gaalo ah inay yidhaahdeen masaajidda ilaahay baan camiraynaa oo muslimiinta ugu faanaan oo yidhaahdiin annagu beytka ilaahay baan joognaa dadkii xujaydaan wax u qabanaynaa arrintaas waxaa leeyahay maya lama akhrisanayo cid idinka yeelaysa male maa kaana lilmushrikiin mushrikiinta yacni uma bannaana maa yajuusu wamaa yasixu an yacmuruu masaajid allah ilaahay masaajidiisa inay camiraan ilaa ilaahay magaciisa ayaa masaajidda lagu sheegayaa ayaguna shirki bay wataan oo wax daranay ka akhrinayaan shaahidiina calaa anfusihim bilkufri ayagoo naftooda gaalnimo uga markhaati kacaya xaaladooda ay ku jiraan iyo qowlkoodaba ulaa'ika xabitat acmaaluhum kuwaas camalkoodii waa buray maadaama gaalnimo ay ku jiraan iyo shirki wa fi nnaari hum khaaliduun naar bayna ku waarayaan haddii ayaga marka aysan munaasab ahayn inay camiraan yaa masaajidda inay camiraan iska leh innamaa yacmuru masaajid allah masaajidda alla waxaa camira keliya man aamana billaahi walyowmi alaakhir dadka rumeeyey allah iyo maalinta dambe dadkaasaa camiraadda masaajidda iska leh wa aqaama asalaata salaadana toosiyey wa aata azakaata zakadana bixiyey oo dadkii
maartay kale wax taray asaguna tiisiiba ka soo baxay lagu lahaay salaadii iyo iimaankii zakaduna waa dadkii kale ayuu ixsaan u sameeyey walam yakhsha ila allah alla moogiyo cid kale aan ka baqin facasaa ulaa'ika kuwaas waxay mudan yihiin an yakuunuu min almuhtadiin inay iyagu hanuunaan kuwaasaa mudan ee kuwaan xaq uma leh inay yidhaahdeen masaajidda annagaa maaragtay camirayna annagaa ka shaqaynayna ma astaahilaan maxaa yeele maba soo xaradiiba kuma jiraan beytka ilaaha loo diidaba inay soo galaan oo la yidhi ma soo geli karaan dad qaawan oo dhahaya maaragtay wax daran akhrinaya xaq uma leh innamaa yacmuru masaajid allah ilaahay masaajidiisa waxaa camira man aamana billaahi walyowmi alaakhir dadka rumeeyey allah iyo maalinta dambe wa aqaama salaata salaadana toosiyey oo arkaanta islaamka ugu weyn wa aata zakaata zakadana bixiyey walam yakhsha ila allah alla moogiyo cid kale aan ka baqin facasaa ulaa'ika kuwaas waxay mudan yihiin an yakuunuu min almuhtadiin inay maaragtay hanuunaan ay ka mid noqdaan kuwa hanuunay wallahu aclam